بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله ثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhalinyarta qiimaha iyo qadarinta mudano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaad kusoo dhawaataan cashirkeennii taxanaha ahaa aan ka dhigan jirnay ama aan ka baran jirnay Outer College of Communication. waxa aad kaasoon hawada idiin soo mariya Engineer Saciid Cabdullaahi Kayaad kaas oo ka baranno magaranaysaa CCNA-da ama magaranaysaa wixii magaranaysaa yani Cisco ku tacalluqa gaar ahaan magaranaysaa networking-ka. marka waxa cashirkii hore marka hore soo qaadnay wuxuu ahaa static routeska iyo wuxuu ahaa magaranaysaa demonstration oo some labs labab aan sameynay ayuu ahaa iyo magaranaysaa static-ga. marka hadda iyo static-gii oo baranay maanta waxaan baranaynaa cashirka saddexaad oo la yiraahdo RIP iyada oo version 1 iyo version 2 ba ayaan baranaynaa. wax saasi kuma kala gaduwanaa. version 1 kaliya waxayna yeelin wax command la yiraahdo auto summary oo classful bay hadii jeer ka dhigtaa magaranaysaa wixii oo classless aan ka dhignay ama subnetting aan ka dhignay subnet garaynay. Allahumma salli ala sayyidina waxa kayna waa baagii dhawray version 2 na waxay samaysaa waxa yani multicast-ga horta waxay samaysaa waa 224009 waxana weeyaan no auto summary marka la yiraahdo by default iyada laftigeedu summarize bay ku samaysaa cashe magaranaysaa IP address-ka laakiin oo network-ga IP version 4 ka ah. laakiin haddii aad tiraahdo no auto summary command-ga la yiraahdo taasoo arki doono way magaranaysaa wuxuu noqonayaa IP address ka sida ugu tala gashay uu noqonaa network-gi. for example kuwan on waanka ku xidhnay aan arki doono idhaahno magaranaysaa kan oo kale tusaale ahaan aaway kan oo kale waankan ku xidhnay /30 aan nidhi waxay ka dhigaysaa /16 oo 172 waa class B ayay u qaadanaysaa. marka no auto summary markaan idhaahdo laakiin 252 geenu inoo ahaanaya. waxa kale leedahay halkan iyadoo la xuso mudan matrix-ka ama qaabka ay wax ku doorato. matrix-ka waxa la yiraahdaa qaabka ay wax ku doorato kow waxay markaa ay leedahay waxa la yiraahdaa matrix-keega ama habka ay wax ku doorato hop count ayaa la yiraahdaa. hop count waa maxay? waa sidan oo kale. let me show you again. router-kan haddii halka network-ka kaga xidhan yahay aw network halka router kale oo yaala inay wada gaaraan ay rabaan. hadduu halkan router kale kaga sii xidhan yahay oo router kale kaga xidhan yahay wuxuu odhanayaa router-kan kow kan laba hadduu ka saddexaad ku gaadho router-ka saddexaadna uu ku xidhan yahay saddex hab ayuu sii maraya. macnaheedu waxa weeye ka kow ka shisheeya iyo ka kale example ahaan ma leenahay hadduu ku ooli lahaa. laakiin haddii uu mid halkan yahay oo kan labaad ku sii xidhan yahay network wuxuu odhanayaa dariiqana iga dhow sababtoo ah I can reach two hub la one oo halka ku yaala iyo two oo ah kala ku sii xiga oo network ku dhaga ku lagu configure gareeyay ama ku yaalo. marka saas weeye horta hub count-ga ay samayso. marka waxa weeye wixii 15 marka waa 1 ilaa 15 uu gaadhaa router-rada advertise gareynaya ribta. wixii 15 ka badan ma waxa loo qadariyaa magaranaysaa ama loo consider gareeyaa unreachable ma gaadhayo. marka wixii 15 ka baxsan router-ka 16aad tusaale ahaan waxaan ka wado inanka waa saddex router waxaan ku haynaa halka hadday router kale yaalaan daadsanaan lahaayeen oo network ku wada xidhnaan lahaa dee way raadin router-ka 15aad markay joogto wixii ka shisheeya waxa odhanaysaa aniga ma gaari karo sababtoo ah matrix-kii aan wax ku dooranaya ama habkii aan wax u dooranayay wuxuu ii sheegay inaan 15 router ku ekaado 16 hadday noqotona inaanan gaari karin. marka saas ayaa la leeyahay consider loo leeyahay magaranaysaa 15 1 to 15 habis ayay ku shaqaysaa. habiskuna waa router-rada anything beyond that wax kastoo inta ka sheeyana ama ka dambeeyana waxaa loo consider gareeyaa as an unreachable yani lama gaari karo. macnaheedu waxa weeye uma laha magaranaysa amar inay gaadho looguma sameyn dadkii oo magaranaysa sameeyay protocol-ka. marka saa ila socda laabkeeni waa kan laabkeeni baan soo dejisanaynaa sorry. marka laabkeeni waa kan marka waa pre-configured ayaan ku sameeyay because waqtiga badan ay naga dhimanaya ayaan diidayaa inigana ay si faa'iido ay idigu ahaato. waan configure gareeyay kan waxaan siiyay 10.1.1.0 baan qaybtan isku siiyay. router-kan oo /24 dabcan waa subnet waad garanaysaa subnet maskiga waa 255.255.255.0 kanna
waa 172.16.8.01 labadan isku siiyey marka kaliya IP space kan inta uu bixinayay ka waa 1 iyo 2 ama 1 iyo 2 saas uu bixinayaa wax laba ka badan ma bixinayo that's why man tediga uga dhigay oo 255.255.252 oo inoo noqon doona kana sidoo kale kan waxa siya 192 kan waxa siya 172 macnaheedu waxa weeye saddexdii class ee class A iyo class B iyo class C ba maanta inaan magaraysa routing protocolkan oo magaraysa version 2 ga ah wanku waa la mid oo waan inii sheegay commandigaas geer kala gadisan yihiin oo ah no auto summary oo midna yeelaynin midna no auto summary oo leeyahay oo marka version 1 ku kuwan oo kale imkan waxaan nidhi 192/24 wax kasto jajabino /25 26 27 aan ka dhigno sidii hore aan u baranay waxa ka dhigaysaa maad aragtay marka saddexdan class aan ku baranay version 1 ka version 1 hadaan idhaahno waa same waxa isku mid yihiin version 2 soo shaqaysan bay wada shaqeeyaan laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay wanku muxuu kaga duwan yahay 2 ka sidii hore baan u soo sheegnay imika cat/30 aan ka dhignay wuxuu ka dhigay /8 boolka ka dhigay oo class full buu ka dhigayaa magaraysa version 1 ku mid kasta oo nadweegyada kamid ah oo kala jajabsanay class full bay naga dhigay class full lama rabna Soma laakiin version 2 gu waxa inoo sahlaysaa iyada by default class full bay iyadu ka dhigtaa /8 bay ku celinaysaa kana /24 kiisa u deynaysaa ma garanaysa in kana waxa 16 bay ku celinaysaa moogta kana 8 bay ku celinaysaa /yada sidaan hore soo aragnay sidar notice laakiin markii aan idhaahno waxa ma garanaysaa in version 1 command ba jira no auto summary leedahay no auto summary haddii aan ku issue garayno ama aan gelno routerada sidii noogu deynaysaa saasana version 2 ku ka fiican tahay version 1 ka marka inuu soo celiyo iyo multicastna waa leedahay version 1 kuna waxa isticmaashaa waxa la yiraahdo broadcasting oo 255 halka tan ka isticmaasho version 2 gu 224.0.0.10 ay ka isticmaasho marka balan guda gallo waan configure gareeyay imika waxaan fiirinaynaa in routerkan inuu computerka kale arko أو بينجريو هذا بينجريو that we are in trouble we are in trouble okay maxaan sameynaa kee rabnaa inuu bingare ka inuu bingareeyo iska daa ka waxaan rabnaaba inuu bingareeyo soo kan ma aha waxaan rabnaaba inuu bingareeyo numberka halka ku yaala oo ah 2 aye 172.16 kaas waxaan soo sheegay ka inuu gaari karo laakiin ka inuu gaari karo sorry ka inuu gaari karo waa suuragal laakiin ka ma gaarayo whatsoever balkaasaan ku eegaynaaba oo inuu gaadho badan tahay 16 because wada hal router baa isku xidhiidhinaya marka way sarkayaan ila tahay bal let me check and 68.2 yes waa gaaraya ma aragtaa kaasa router ayaa isku xidhay waa 2 gis laakiin 1 haddaan ka dhigno it will never reach face ka ma arkayo kaas ma gaarayo wax ka saaday dhacaan waxaan ribta ugu baahanay ama dynamic routing protocol kan ugu baahanayna waa kaas waxaan soo nidhi static waa wax jooga dynamicuna waa dynamic routing protocol oo waxa aan magaranaysaa in isku baraya qaab automatic ah marka waa automatic marka ma aragtaa inuu leeyahay time out request time out marka ma gaarayo for something waxa la diray 4 packet baa la diray receiving waa 0 lostiguna waa 4 baday lostiguna waa 4 waa kaas losti 4 100% loose marka macnaheedu waxa weeye waxa leeyahay ku soo laabtayba ma jiraan marka let us configure hadaba routerkan aan ka bilaabayna aan configure gareyno marka aan configure gareynayno router kasta wuxuu configure gareynaa network uu leeyahay ay garatay halkan aan ka eegaynaa soo dhigaynaa router kastaba network uu leeyahay configure gareynaa for example ninka ka tan kan oo kale kan uu ku xidhan yahay fast ethernet raxwayna router waliba waxa sameeynaa intaan aan sameeyniba in routerkan inuu routerkan kale gaaro iyaan isku daynaa si aan sheekada bay inagu sameeyo okay ping si aad u xaqiiqsataan 10.1.1.1 10.1 sorry 10.2.1.1 soma kaas ma gaarayo waana routerkaas eega hada waana routerkaas ka ma gaarayo saaxiibkii ka ma gaarayo kaana ma gaarayo ma aragtaa
waa ka waadiida balkiisa kale 2 aanan gaarsiino ma gaarayo whatsoever ma gaarayo okaas marka macnaheedu waxa weeyin isba gaar isma arki karaan there is no way isku arki karaan ilaa aan isticmaalo read version ma garatay ilaa aan isticmaalo read version marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay config maxaa ku xidhan kan waxa ku xidhan 10.1.1.0 iyo 172.16.8.0 laba mid walba ka ku xidhan uu xayeysiiya okay saa ula socdo marka xalana router rib enter version halkaas ku kala soocaysa version 2 samatini network 10.1.1.1.0 okay enter baa leedahay isagu xitaa wax kale kaaga ma baahna moogta oo ah yani 255 iyo ma garanaysaa subnet mask kaaga ma baahna yar waa intaan network hadana 172.16.8.0 so samahayn so 8 may ahayn maxay ahayd .8.0 sax way enter baan leenahay do right waa nini sheega horay waa sidaas kana ii samee routerada ma lagu configure gareeyaa switch ku configure gareynina sidaas u arka switch waxa la dhahaa ku configure laguma configure gareyn karo in ma garanaysa routing protocol isku waa wax layer 3 qaada layer 3 na routerada ma layer 3 qaada ma fahamtid saa ula socda okay config router web اللهم صل على سيدنا محمد كاسان كجرنا اوكي لا سocda and version 2 network okay kani marka waa inuu saddexda xayisiya saddexda network waa inuu kani xayisiya marka may garatay marka wuxuu xirtaa oh sorry 172.16.4.0 waa network ma la socotaan okay network kale labaad waa kaas baan ku daran 172 router kasta mid ku hayo waa inuu xayisiya okay .0 isna waa enter adana network kale waa network waa ka waa 10.2.1.0 saguna waa ka do right kaasna halkaas ku dhamaaday filimkiisii اللهم صل على سيدنا كان وانجلينا لا سؤال كان أسوينا enable config router web version 2 and network isna misay network ba ku xidhan waa kaas iyo kaas laba network ba ku xidhan soo ma network 192.168.6.0 iyo network kale 10.2.1.0 ma garatay do run good marka hadda waxa sameeynaa ba routerkii ka marka hore arki waaye bal inuu kaas imika arko inuu copy garay okay no soo dhig waa verifying yeah okay end ina waa kaga bax ama control set baa kaga baxaysa ama end halana pink 10.2.1 10.2.1.1 10.2 ma gaadhayo the reason sababtoo ama taqaanaa waxbaa qaladay bal waxa qaladay waa inaad soo ogaato ya bal muxuu yiri muu inaga diilahayd okay bal aan fiirino tan marka eeg numberkaas inuu arkaan waa routerka ku jirno waa routerka ku jirno waxaana rabnaa inuu network arko bal ping waalana waa inaga diiday muxuu inooga diiday saash waa ka networkna waan isticmaalay muxuu inooga diiday malba baan khalad ka sameynay waan sabal waa eegana inuu khaladna ka sameeyay waliba routerka khaladna ka sameynay u badan tahay okay waxaan idhi halkii 10.2.1.0 ka ahaan lahaa 1 ka dhignay marka waa inaad tiraahdo ma garanaysaa no network 1.2.1.0 waa inaad saa tiraahdo no network marka waa inaan haddana nidhaahno network kan oo nidhaahno 10.2.1.0 and do right
hadda waa ka khaladku intaan weeyaan troubleshooting lagu sheegay marka kana haddana tagaynaa waxaan leenahay numberkii hadda aad naga diiday adigoo routerka ay numberkii aad naga diiday inaad aragtid imka samee waa kaas maaragta travel bankiga sida weeyaan marka waa yani masalan khaladku inta ka dhaca saas weey ka kale isaga laftigiisa waxa odhanaynaa inuu arko inuu bingareeyo ma garanaysaa networkaas waska tijaabinayna okay ila waa tijaabo 10.1.1.1 day good .2 giiso switchka waa inuu arko sorry 2 giiso switchka waa ka hal xabaa lumaysa saddexda kale way imanayaan xabadaas waa luntay saakalina waa luntay khaladka halkaas ka baxayna waa deedogan okay marka 10.1.1.2 okay marka waxaad switchka fiirinaysaa marka waxaad leedahay switchka meesha yani iniga moogtahay waxyaalaha aan u ka sameeyaa jiraan waxaad leedahay show IP interface brief baa jira waayahay saintoo tiraadi waxaad leedahay maxaa IP address meesha kuma jira waa in ku jiro VLAN waa inoo dambaysa ila IP address ma ilaahay VLAN waa taas 10.1.1.2 okay 10.1.1.2 okay maxaan markaa ninkan u arki waayay ku celi mar labaad waa diiday waxaa sheekada ku timiday hadda waxaan fiirinaynaa routerkaasaan rabnaa inuu switchka aragno bal inuu inoo arko ma arkayo maxaa dhacay waaban ujeedaaba inuuna arkin maxaa dhacay uuna u arkaynin sababtu waxa weeye switchkan waa in loo sameeyo waxa la dhahaa IP default gateway okay marka sawirkaas uu arko okay kanaan gaabinaynaa kanaan iska xidhaynaa switchkan galaynaa waxaan leenahay IP default gateway 10.1.1.1 do run marka kaasina switchkan marka uu soo arkayo enter kii adarku idaarag waa kaasina saas uu shaqeynaa maaragta routerka waa switchka saas uu soo arkay marka iminka computerkan ila server inuu tago inaan bingareeno way si missionka uu soo xidhnay wixii successful u noqdaan okay maxaa halkan kii ugu horeeyay wakaas maanta gaadhay maaragta inuu gaadho maaragta kaas inuu gaadhayo wakaas kaasina oo waa PC gu laptopku kaasu gaadhay kana inuu ka gaadho way serfaha okay snapping sorry ping maxaa ah serfaha kiisu baa maxaa laptopka 10.1.1.3 waa kaasina gaadhay maaragta marka verification ku waa sida switchada saddexda inay isgaarayaan balkani ku eeg I don't think inay isgaarayaan balan eegno laakiin ping 10.1.1.2 ma gaadhayso waa gaadhay sababta default gateway buu leeyahay inay gaadhay in kala niyagay kan inuu kan gaadhaan ku fiirinaynaa isaguna inuu kee gaadho kani inuu kan gaadho iyaan haddana eegaynaa switch ahaantan iminka u jeedna uga leenayno waayahay maxaa odhaynaa 192.168.6.3.2 sorry ma gaadhayo ila tahay yes ma gaadhayo sababtuna u gaadhayna wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo commandigi hore waxaa ku sameynaa inaan ku sameyn balkan inuu gaadho haddabaan sheeg balkan kan aan ku gaarsiinaysa kan marka hore kaasuu gaadhay laakiin kan inuu gaadhaan eegaynaa I don't think inuu gaadhayo 7.2.16.4.2 ma gaadhayo marka labadan switches ma gaadhayaan laakiin computerka halka kasoo bingaraysid intuu halkaa maro intaa ka maro switchka sii dhex maro ayuu gaadhayaa why ay labadan isku gaadhi laayihiin labadan waxa isku gaadhi laayihiin necessarily ma aha inuu gaadhaan because
kan wuxuu gaarayo waxa ku sameynay waxa la yiraahdaa magaraysa interface VLAN 1 marka VLAN by default waa aqal cid walba yani cid kastaas ka dhaxmari karto waa wada oo kale iminka laakiin switch inuu la communicate gareeyo uma inaan sameyn marka mid kamira ayaan sameynayna IP default gateway aan ku sameynayna kaasoo kala ku sameynayna iminka waxaan sameynaa way isgaarayaan IP default gateway oo kan oo magaranaysa 172.16.4.1 baan odhanaynaa do right ma odhanaynaa marka iminka kaasaan ka soo bingarayna uu gaaraya iminka soo ma diidin iminka waa kaas hal xabaa lume uu inuu gaaro waa kaas arda waa ka gaaray marka saas weeyaan de waan inii magaranaysaa marka markasta hadda brief configuration kana ku sameeynaa marka laabkeeni waa successful sidaan ula socda waa RIP version 2 maanta iyo version 1 waxbaan soo dhaafay sorry haddii aan idhaahno iminka midaanan isticmaalin RIP version 1 iyo version 2 midaan ugu kala tusaayay haddaan idhaahno sorry show IP route commandiyada oo la isku arko class full baan wada haysanaa tankii class full buu ka dhigay kani 16 buu ka dhigay kani magaranaysaa 24 kiisii uu u daayay ka kale wuxuu ka dhigay magaranaysaa 30 kiisii loogu daayay and the reason why inaan idhaahnay ahayd magaranaysaa ma actually kan mar hore aan ka shaqeeyaan malayna lab markaasaan u noqonayaa config wuxuu noqonayaa magaranaysaa waxa la dhahaa router rip no auto summary commandigaasi waa qaali moogtay into waa yahay hadda horena show IP route iminka muxuu kala bedelmay sorry show IP route because mar hore aan ka shaqeeyay kan on maartay ka dhawaysay laakiin class buu ka wada dhigi lahaa may garan raawad mahadsantiin commandigaas inaan tusoo rabay sidoo kale kan haladay router rip no auto summary that's it my family saas ma soo sameynaysaa inta router oo dhan kade waxa taayay haladay no auto summary marka show IP route wakaas kana dooga badan baa ku xidhan ribti intay wada xaysiinayso dhan wadiga arkaya degdeg ma garatay marka waa kaas iminka 10.1.2.0 which is ka 10.1.2.0 waxa uu ku xidhan yahay kuleeyahay is directly waa connected laakiin ka ribtu keentay waa 10.1.1.0 which is this one that one ma garatay wuxuu connected ku yahay 10.2.2.1.2 oo ah ma garanaysaa kaasuu ku xidhan yahay ma garatay marka wadadan uu qaatay kan uu qaatay kaasuu marka ku sii xidhan yahay ribtoo kale 172.16.0.0 kan wuxuu ku xidhan yahay 10.2.1.2 because kaas markii loo sameeyo 10.2.2.1 markaas saas ayay magaranaysaa inoo tahay aad baa idin salaamay casharka waan soo gabagabeynaya waa batayba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu